galmudug waxay ahayd laba quruub oo isu tegay ahayd oo galmudug iyo nimankii sunna la baxay magaca xisbi islaami ah magaciis ku qaraabanayay ama watay marka ayadina waxaad moodaa inay halkeedii u laabatay oo kala firdhadeen cid kastaa sababta ha lahaato laakiin in dhuusamareeb laga tegay oo madaxweynihii maamulka iyo siyaasiyiintii ka tageen nasiib darro inay tahay fashilaad inay tahay dhibaato inay tahay deegaanka la waxyeeleynayo odayaashii iyo siyaasiyiintii iyo dadkii ka soo jeedan aan cidna laga weydiinayn cidna lagala tashanayn marka nasiib darrooyin fara badan baa dhacay wixii gaar ah isii weydiinaysaa waan guda gelayaa waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed waxa ugu weyn ee isweydiinayaan waxa weeye maxay isku qoomeen ama maxaa ugu weyn oo ay dhinacyada isku fahmi waayeen xaaf iyo ragii ahlu sunna ee dhuusamareeb ku mideysnaa hadda kala tageen dad aragtid laba kooxood oo heshiisa qolastarkeed iyo waxqabadkeed baa lagu wada joogaa labadu ma noqon karaa laba siman oo cadaalad wada ah nidaamka isku fahmaya marnaba ma noqon karto qola unbaa wanaaga iyo wada iyo hoggaankaas sidii la isu fahmi lahaa marka waxaan dhihi karaa haddii xaaf uu la heshiiyey oo yimid caasimadii oo maamulka uu ku qabtay tanaasilaad fiican inuu sameeyey maamulka in heshiis xataa la abuuray kuraas aan dastuuri yahayn baa la sameeyey taasi marka wax wanaagsan baa loo arkayay laakiin baashi way dhaqaaqi kari weysay hadda isqoonku waxaan u malaynayaa inuu ka yimid kala sarreyn la'aan ama daljir dahsoon oo ka madax bannaan oo aan muuqaninoo baasha isagu kor ka ilaalinaya sida mataqaana hogaamiyaha ahlusunna oo kale marka waxay isku qoonsadeen aan isleeyahay siyaasadda iyo ragga indhaindheeya waxay leeyihiin waaba isku ogaan karaan hadday doonaan haddii waktigiina soo dhawaaday waxaana la shaqshaqanayo war wixiina gaar u haysta aniga madaxweynenimadeyda iyo maamulkaygii waa la laabanayaa gaarkayga waa u fahmaya marka dadka qaarkii waxay leeyihiin waxay isku ogaayeen ma noqon kartaa laakiin ma ahan waxa weeye waxay si ogaan Cabdullaahi waad ogtahay xaaf waxyaabo badan oo aan dastuurka ku qornayn galmudug buu sameeyay tanaasulaad weyn buu sameeyay waxaana uu geeyay dhuusamareeb maamulkii galmudug oo loo dhan yahay hadda cadaado ku laabtay wixii ugu weynaa oo yiri waxa ahayd waxaan ka soo tagay oo heshiiskii ahlu sunna iyo galmudug aan ku burburiyay rag aan ballan lahayn marka ma waxaad leedahay qodobadii qornaa ee lagu heshiiyey ayaa dhuusamareeb ka socon waayay mise wax aan ahayn wixii lagu heshiiyey dhinacyada isku qabteen oo ku kala tageen horta xaajinta uu sameeyey waa muuqataa marka samaynta in lala qaato muhiimka waxaad moodaa ajenda qarsoon inay lahaayeen nimankan ahlusunna jamaaca ajendaha qarsoona waxay ahayd mid kulliga aan kala wadaagayn oo ala deegaanka ama odayaasha ama siyaasiyiinta ama galmudug ama madaxdeeda midaan lagala tashan baad moodteen oo ahaa wixii ajenda qarsoon haddii jiro mar walba fashil waa imaanaya waxaan isleeyahay kala dambeyn iyo kala sarreyn iyo amar qaadasho la-aan iyo ajenda qarsoon baa helayo baasha burburiyaan isleeyahay laakiin siyaasadana dhinacyo kalena waa noqon kartaa isku ogaalna waa noqon kartaa maadaama waktigu soo dhawaaday marka arrintaasi waa dhacday ceebteeda iyo foolxumadeeda iyo kala firdhadkeeda ay leedahay laakiin sidaa uma rag lahaa umana rabbi lahaa umana dad lahaa umana dumar lahaa waxaan u malaynayaa in wixii shala dhacay may maanta taagan iyo berito wixii imaan doona in looga gudbo taas baa aniga ila tahay hadalhaynteedu ma samaynayso xal marka dawladda dhexe oo hadda saameyn weyn ku yeelatay siyaasadda galmudug markii loo eego sanado ka hor siday ahayd iyo ahlu sunna maxay isku raaceen oo la oran karaa waxbay ku heshiiyeen muxuuse ka bedelaan karaa haddii ahlu sunna iyo dawladdii dhexe ay heshiiyeen kii ahlu sunna ay la gashay galmudug waxaan horta aniga aad u soo dhaweynayaa brimalayserku inuu tegey cadaado haddaba dhuusamareeb keliya tegi lahay
qas kale iyo mashaakilo furanay ahaan lahayd isagoo ajenda kale kasta ha ahaado siyaasad hadde soomaalidu ku macnayo siyaasad farda saaran oo ordaysa ha ku shaqeeyeen si kastaba ha ahaato haddii deegaankii iyo labadii meeloodba uu tegay waxaa dhici karta in aan la sharaysan oo dhanka kale looga faa'iidaystaa dhici karta dan su-aashaada usoo laabto waxba kagama bedelna waayo maamul kastoo la dhiso haddii awood qarsan ama ajenda qarsan oo ku lamaansan yahay ma shaqayn karto marka inay dawladdu kala heshiiso sunul jamaaca inay sideeda ahaato maba ahanba waa in si hogaanka sunul jamaaca waxaa door bidaan laba waa inay mid yeelaan inay dadka kamid noqdaan ciidanka iyo maamulkana ay shaqadooda u daayaan oo ay dadka kamid noqdaan inay iska salimaan oo isaga baxaan labadaba waa yeeli karaan oo intii hore iyo waxay qabteen iyo shabaab la dadka lagu maamuuso midda u roon oo dadka ay dadkana u roon laakiin ajenda qarsan dawladda lama geli karto dawladduna intaa ma qaadan kartaan isleeyahay galmudug hadda markii xaaladeedan ay isbedeshay habeenadii lasoo dhaafay ma waxaa kuu muuqato inay wadadii saxda ahayd oo galmudug oo mid ah oo maamul laisku raacsan yahay oo dawladdii dhexana la shaqeeya oo ka aas-aasmi lahaa mise waxay kuula muuqataa in galmudug weli aysan waddo sax ahaynin oo jahwareer iyo dhibaato kale lugaha lasii galayso waxay ila muuqataa had walba sidii looga shaqeeyo inay baashu u dhacdo aniga waxay ila tahay in dadkeedu hadda ay gacanta ku qabtaan inay iska iloogaan wixii hore hadday maamulada labadaa oo kala xanaaqe ay tahay dadweynaheeda hadday tahay siyaasiyiinta hadday tahay dawladda dhexe hadday tahay waxaan isleeyahay waa in loo sameeya wadda saxa waa in orodka laga daayaa waa in fursad la siiyaa waktiga waxaan dhihi lahaa aan ku tala bixinahayn ama aan ku tala bixinayaa waa in la siiyaa baarlamaanka galmudug iyo dawladda galmudug waxay awood u leedahay dastuuri oo sharci ah inay ku daraan muddo gaaban ama bil ha noqoto ama laba ama saddex inay kordhiyaan dadkuna ay dib heshiisiin loo sameeyo waya cabdullaahi raage dadku way ku yaqaanaan xildhibaan baarlamaanka soomaaliyeed ka tirsaneed waayadan laguguma aqoon warbaahinta inaad kasoo muuqatid iiga waran galmudug iyo arrimaheeda hadda dabcan aada uga hadlaysa mahami siyaasadeeda kugu jira oo soomaalida inaad dib ugu soo laabatay siyaasaddii hogaaminteedii ah xaqiiqatan siyaasadda kabixisteeda iyo gelisteedu had walba waa sidii duruufuhu yihiin waaye adiga waa isu sharxa galmudug inaan tartankeeda ka qayb galo laakiin siyaasadda anigu aan tartanka ku galayay oo aan galmudug hogaankeeda aan musharaxnimada uga qayb galayay ma aan mid fidno iyo dhibaato in looga shaqeeyaa inaan anigu ma ahayn aan ka qayb galayo marka galmudug warkaaga waxaa ku jirta oo aada ugu soo laalaabatay siyaasadda galmudug aan ku hagi doono mid remuudka meel kale looga hayo maahan ama aan ka ahay safiir ama wakiil oo meel kale laga soo maamulayo dabcan soomaaliduna aad bay ugu bateen dadka noocaas ah galmudug warar baa hadda soo baxay oo la sheegay in musharaxiin qaar la wato qaar la maalgelinayo adoo xaggee ku tiirsanta horta tiirsanaanta aniga shacabkeeda iyo dadkeeda iyo aqoonteyda iyo aragtideyda aan ku tiirsanahayn waxa aan ka digayaaba waxay tahay cida aan shaqadina qaban karin ajenda gaaban oo wakti gaabanana laga leeyahay oo meel kale laga hagayo ayadana wax uma gasho cidda usoo dirtana wax uma gasho waxaa wax u gala dalkuna inuu dego dadkuna dego ciday rabaan oo horumar iyo nabadgelyo iyo midayn iyo dib u heshiisiin ka shaqayn karto in loo dhaafo ayadu ay qof soo xulato aniga ma ahan mid kale ma ahan kii ayagu ay door bidaan dastuur bay leeyihiin baarlamaan bay leeyihiin odayaal bay leeyihiin siyaasiyiin bay leeyihiin dhaqan bay wax walbay leeyihiin marka aragtidooda inay baarlamaan iyo dawlad iyo hogaamiyihii iyo waxa in ayagu aragtidooda kusoo hashaan marka aan leeyahay lagu soo dhex tuuray waxa waaye mid meel kale laga yeerinaya galmudug wax uma gasho dalkana uma gasho